Qaraxii weynaa ee Toba eber sano ka hor wuxuu sababay mugdi caalami ah iyo qabow, balse bini'aadamku way badbaadeen oo la qabsadeen. Warbixintani waxay muujinaysaa sida ay dadkii hore u adkeysteen masiibo dabiici ah oo baaxad weyn leh. Qaraxii supervolcano ee Toba, sida ay bini'aadamku u badbaadeen. Qiyaastii eber sano ka hor, volcano weyn oo ku yaal Sumatra, Indonesia ayaa qarxay si aad u hoogan. Qaraxan oo loo yaqaan Toba supereruption wuxuu hawada sare u diray eber oo dambas ah, isagoo sababay mugdi iyo qabow caalami ah. Waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa mid ka mid ah masiibooyinka ugu halista badan ee dhulka ku dhacay 5 milyan sano ee lasoo dhaafay sritedlayli. Saamaynta bini'aadamka dambaska volcanoga wuxuu daboolay irka, wuxuuna xanibay iftiinka qorraxda, taasoo keentay qabow caalami ah oo socday sannado. Roobka aashitada leh ayaa sumaynayay biyaha, dhirta iyo xayawaanka agagaarka volcanoga. Qaar ka mid ah saynisyahanada waxay rumaysnaayeen in qaraxan uu sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid tirada dadka ilaa hal eber qof oo kaliya ay ka badbaadeen sustainability teams. Caddayntana ayaa muujinaysa inay jirto genetic bottleneck, hoos u dhac weyn oo ku yimid kala duwanaanshaha hiddo-sidayaasha bini'aadamka sida loo barto qaraxyada waaweyn. Saynisyahanadu waxay adeegsadaan tebahra dambas volcano iyo qiito tebahra dambas microscopic ah si loo ogaado baaxadda qaraxa. Qiito tebahra waa dambas aad u yar oo aan indhaha lagu arki karin, balse wuxuu safri karaa masaafo dheer. Waxaa laga helay goobaha qadiimiga ah ee bini'aadamku degi jiray, taasoo muujinaysa in dadku ay noolaa ka hor, intii uu socday iyo kadib qaraxa sritedlayli. Archaeology News Online Magazine. Caddaynaha qadiimiga ah goobaha sida Benacle Point, South Africa iyo Shinfametema, Ethiopia, waxay muujinayaan dadku waxay la qabsadeen isbeddelka deegaanka, waxay bilaabeen teknolojiyad cusub sida fallaadhaha iyo qaab nololeed cusub, waxay u guureen meelaha ay biyuhu ka jiraan xilliyada qallalan, waxayna bilaabeen kalluumaysi. Casharada maantayn kasta oo Toba uu ahaa mid halis ah, bini'aadamku waxay muujiyeen adkaysi iyo la qabsasho maanta. Barnaamijyada sida Volcanic Hazards program waxay si joogto ah u kormeeraan volcanoyada firfircoon. Daraasadaha qadiimiga ah waxay naga caawin karaan in aan ka hortagno masiibooyinka mustaqbalka. Gunaanad, qaraxii Toba wuxuu ahaa mid halis ah oo beddelay cimilada dunida, balse bini'aadamku waxay la qabsadeen, badbaadeen oo xitaa horumar sameeyeen. Taariikhda ayaana baraysa in xitaa marka ay dhibaatooyin waaweyn dhacaan, ay jirto rajo iyo xalal cusub.